guddiga u xilsaaran qabanqaabada caleemasaarka garaad cabdilaahi axmed sulub oo 21 bishan ka dhacaysa magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn ayaa waxa ay maanta shaaciyeen xilliga ay dhacayso caleemasaarka garaad cabdilaahi axmed sulub oo ahaa garaadka beesha aadan axmed kana mid noqonaya isimada dhaqanka gaar ahaan isimada gobolada Sool Sanaag iyo Cayn waxaana ugu horeyntii munaasabada lagu shaacinayay caleemasaarka garaad cabdilaahi axmed shaaciyay gudoomiyaha guddida qabanqaabada Mustafa Xaaji Cabdi Muuse Nuur ayadoona hadalka ay u kala dambeeyeen odayaal waxgarad miyaha guddida aadan axmed ee caleemasaarka garaad cabdilaahi axmed cabdi ay horena u shaacsadeen caleemasaari doonaan insha Allah taala maalinta ay bishu tahay maanta bishu waa 5 bishii 12 ee 2022 insha Allah halkan waxaanu maanta ka shaacinaynaa anagoo joogna madashii xoolihii loogu talagalay hadda aanu dhex taaganahay xoolihii loogu talagalay caleemasaarka garaadka in aanu halkan ka sheegno iyadoo cuqaashii iyo ninkarboodkii aadan axmed ay iga dambeeyaan aad aragtaan xoolihiina aad aragtaan oo diyaar yihiin ari iyo geelba waxaan halkan ka cilaaminayaa in insha Allah taala uu dhici doono caleemasaarkii garaadku maalinta ku beegan 22 bishan December ee 2022 isagoo ka dhici doona waa maalin Arbaca isagoo ka dhici doona hadii Ilaahay idmo magaalada Buuhoodle madashii iyo wixii facility loo baahnaana ay diyaar yihiin waxaanu halkan ku casuumaynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed isimadeeda iyo waxgaradkeeda iyo aqoon-yahankeeda aan ku casuumaynaa inay nagala soo qayb galaan Axmed Maxamed Ducaale Qambi oo ku hadlaya magaca qurba joogta beesha halkan ku kulantay ee taageersan caleemasaarka garaad cabdilaahi axmed cabdi aan mar labaad u mahad celinayaa qof kasta oo qabanqaabada hawshan ka soo qayb qaatay qurba joogta aan wakiilka ka ahayna muddo iminka 3 cisho soo socda hadii alla ka dhigo ay halkan inoogu imanayaan oo hawsha inta hadhay ina dhameystirayaan cabdilaahi garaad cabdilaahi axmed sulub cabdi yaanu halkan ka caleemasaaraynaa insha Allah kugu maalay waan leenahay kilo ayana Allah ka dhigo annaguna diyaar baanu u nahay inaanu u noqono baalashii lagu duulayay inaanu u noqono madashii xoolaha iyo dadkii shaacinayay garaad cabdilaahi garaad axmed cabdi ducaale oo horay loo shaaciyay haddana aanu cayimayno caleemasaarkiisa iyo caana ku shubkiisu xilliga ay ku eg yihiin ee dadka nagala soo qaybgalaya ku soo hagaagayo waxa weeye bisha 12 waxaanu ku shaacinaynaa garaadkii aanu doorannay sanadka bilowgiisii ayaanu ku caleemasaaraynaa 21 bisha 12 xoolihii baanu jeekin garaynaynay oo iminka madashii baanu tubannahay gaaliyaadhi iyo xoolaba waa noo joogaan cid kasta oo isimo iyo cuqaal daafaha dunadeeda joogta iyo ningarbood iyo odayaal iyo madax cid kasta waxaanu ka codsanaynaa caleemasaarka garaadka beelweynta aadan axmed garaad oo ah beel aan laga maarmi karin in loo xeer dhigto laga soo wada qaybgalo garaad cabdilaahi axmed cabdi ducaale garaadka hawshiisa oo maanta aanu taagannahay gabagabadii xoolihii iyo casuumaddii wixii aan ku qaban lahayn oo casuumaddaasoo ka dhacaysa magaalada Buuhoodle ee gobolka Cayn waxaanu baaq u jeedinaynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed oo ay ugu horeeyaan isimada cuqaasha ningarboodka iyo aqoon-yahanada dhammaantood waxaanu ka codsanaynaa inay nagala soo qayb galaan waxaanu dadka u sheegaynaa xilliga caana ku shubkiisa baanu u sheegaynaa waxaa weeye bishan maanta aynu ku jirto waa 5 bisha 12 22 weeye caana ku shubkiisu codsanaa dadka Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan oo ugu horeeyaan isimadu
in sida aan macsuunka ugu bixinay ay noo soo qaabilaan noogana ajiibaan. waxaan u sheegaynaa dadka islaamka ama Soomaaliyeed caleemasaarka garaad Cabdilaahi inay ka soo qayb galaan inta soo gaari karta ismada ugu horeeyaan iyo culimada. beesha aadan axmed garaad aanu ku caana subaynaa dadkana aanu u sheegaynaa darisyada inay ka soo qayb galaan garaad Cabdilaahi axmed cabdi ducaale oo aanu horay u shaacinay. waxaanu codsanaynaa isimada cuqaasha ningarboodka qurba joogta in ay ka soo qayb galaan bishan 12aad ee maanta 5/22keeda baanu macsuumad u fidinaynaa. aanu taaganahay garaadkii aanu horay u shaacinay ee Cabdilaahi Axmed Sulub caleemasaarkiisii hore u dhacay. maanta waa aragtaan caalimka xoolihii iyo ummadii inay halka diyaar ku tahay. caalimka waa laga arkaa. waxaanu diyaar u nahay ummadda ogeysiinaynaa caana shubkii haddii ilaahay ka dhigo. aadan axmed oo markii hore shaacsatay garaad Cabdilaahi Axmed cabdi ducaale imikana caleemasaarkiisii la tilmaamay. xoolaheedii 4 beelood iyagoo waa tuban yihiin geel iyo ari iyo mood oo akoon taalaba. xoolaha wax muuqda iyo waxaan muuqanba leh. taas waa guud ahaan. qodobka labaad waxaynu lahayn dhaqan aynu isla dhisno ama xeer inoo ah isimada. qodobkaasuna waxa weeye waxaanu codsanaynaa maalinta 22 ku beegan arbacada bishan 12aad oo arbacaa beesha caalamku xeerkii aynu isku lahayn ee dhaqanka aynu isla dhisi jiray inaad nagala soo qayb gashaan. waxaan u sheegaynaa ummadda Soomaaliyeed iyo caalamka cid kasta oo ama codkayaga maqlaysa ama bidhaantayada aragta inaan xaajadii gabagaba tahay 22 bisha 12aad oo hadda aan ku jirro inay dhacayso caleemasaarkii. waxaan codsanaynaa ummadda Soomaaliyeed ka codsanaynaa meel kasta ay joogto inay nagu karaameeyaan inay ka soo qayb galaan xafladda caleemasaarka garaad Cabdilaahi Axmed cabdi. cidana maqlasa iyo cidana arkasaba isimada cuqaasha ningarboodka inay nagala soo qayb galaan garaadka beesha aadan axmed garaad ay dooratay ee dhisatay beesha degta sool sanaag cayn gobolka doollo intaa degta yaanu baaq u dirannaa. waxaanu ka codsananaa inay aad iyo aad noogu dhaganuglaadaan. waxaan maanta ka shaacinaynaa oo ka mudaynaynaa caana ku shubka garaad Cabdilaahi Axmed cabdi oo loo asteeyay 22 bisha 12aad oo arbaca ah loo asteeyay oo beesha aadan axmed ay horay u shaacisay sanadka bilowgiisii. caana ku shubkiisana 22 bisha 12aad yahay. darisyada nagu dhow in isimadooda ka soo qayb galaan iyo culimadiinkooda iyo cuqaashoodu. beeshaa soo degta sool sanaag iyo cayn iyo togdheer iyo gobolka doollo. maxamed cali bile warbaahinta qaranka Soomaaliya Buuhoodle.